raggu ma ku badiyaa hooyadii la joogana hooyadii buu amaanaa marka uu tiyar guursadana toodeeran buu amaanaa moogtiiseeran buu amaanaa oo jeclaada dee oo marna macaanay buu yiraahdaa marna hooyooyin buu yiraahdaa labada uga ma dhaxaysaba waxa jira qof saddexaad oo qof walaal la yiraahdo waxaan la dhashay 5 hablood iyo 3 inamood moogtahay hablaha aan la dhashay mid ka mid ah maan siisteen 3 inamood ay kale walaashu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu qaalisan ee qofka bini aadanku yeelan karo waagii hore ninka aan dhalin rag baa la oran jiray uu goblamay soo maaha imka ninka aan dumar dhalin baa la dhahaa uu goblamay anu saan u aqaano horta midba sababtu wax kale ma aha waxa weeyaan way soo kacaysaa laxoobay dubaysaa way shaqaynaysaa inanka dharkiisa ka awdaynaysaa way meedhaysaa haddana waxa la odhanayaa iskuulka raac haddana way alaabtiisa iyo bugaagtiisa u diyaarinaysaa way raacaysaa way soo wada noqonayaan layliskiisii baa laga rabaa moogtahay layliskiisii baa iyadana laga rabaa haddana iyadu way ka hawl badan tahay waxa lagu canaanaya haddana maxaad weelkii u xali weyday macallinkuna wuxuu ku canaanayaa maxaad layliskii ugu soo labadaba waa lagu canaanayaa waxa laga yaabaa inaad shaar iyo surwaal iska xidhato inaan iska ka tiraahdo alla isteelkaaga waan jecelahay maba ogaba dharka cidda ku soo xidhayna walaasha tahay waxaan ugu talagalay inan kasta oo inama la dhalatay oo inamada arooti la xoox dubta san idin sheegay kicisa macawiistooda u laablaabta halka ka kicisa iskuulka la tagta soo noqota weelka xashaa saa samaysa saa yeesha haddana wali lagu canaanto maxaad saa u sameyn weyday maxaad saa u sameyn weyday inan Soomaaliyeed mooyaane malaha inan kale may samayn karteen sidaa xuquuq iyo waxbay raadsan lahayd inan kale malaha waan isdhow waa gaba yaroo gaaban waxa la yiraahdaa naruro abahay nimcadii uu dhalay naal la igu sooraa naruroy adaan kula kuro waad nasisaaye naxdintaada anigoo dhintoon necab dhibtaadaase nud wadnaha ku yaalbow damqada nabaradaadiiye walaashaanu naas wada jaqnaay hayga nuguxsiinin kuu nooli waan kula dhashee nacabka ha u liicin naftaydaad nalkeedii tahee naaqus ha ahaanin naxariista waa loo dhashaa nooca aad tahaye marka aan xanuun naasilmeen nabari soo gaadho sidaad iila nooshahay sidaad iigu nugulaato sidaad iila naaqishi taqaan dariska aan naawo niyaddayda kama saarayo way ku nabantuune nafbaxaaga waan kuu ogee hayga nacasoobin naamuuska adigay boqoroo waan najaxayaaye nafurkaagu sharaftayda wuu naaxiyaa abide nafacaagu haddii aanu jirin neefsi ma kareene naqdintaadu maryahaan xidhay qurux ku nuurtaaye inta aad nasteexada wadeed maanka nasinayso waa intaan nasriga taabayeen guul ku nagayaaye wax kastoon noqdaba waa tahee samirka ii nuuji wax kastoon noqdo berri iyo maantaba iyaduna way tahayuun nacfi badan haddaan leeyahood caawa igu nooshay murugadan ku noogtaan ilaynkaan nasilan laaye waxaan gabayga caawa u naqilay waan ku nafisaaye nafsigaaga uun baan rabaa inaan ku naaraaye nusma gudin xaqaad igu lahayd mana naqtiimayne walaashaanu naas wada jaqnaay hayga niyad qaarmin kuu nooli waan kula dhashee nacabka ha u liicin naftaydaad nalkeedii tahee naaqus ha ahaanin waxa ina rag naanaabayee midiba nooc sheegto ee nuqsaanta haweenkooda bilanaaga u yaqaana naruroy adaan kaa jeclahay niyad ahaantiiye garan maayo niman kuu xuloon kuu naqayn kara ee dharaartuu nasiibkaagu helo midad la noolaato nafku tabaysabaa igu jirtoo nabad ahaanayne nikaaxaagu muruguu igelin neeca udugay nimco eebbe igu deeqayoo ii naxdaa tahaye nabdigaaga ruuxii leh baan naadir u aqaane naxli iyo nuxuus iyo malihid gocasho naareede nasabaabaheen baad caqliga noola shabahdaaye hooyaan indhaha nuurayana niyad xasuustaaye naq xalaala baad daaqdayoo waad nawiraysaaye walaashaanu naas wada jaqnaay hayga niyad qaarmin kuu nooli waan kula dhashee nacabka ha u liicin
naftaydaad nalkeedii tahee naaqusa ahaanin